dowladda Somaliland ayaa digniin culus u dirtay wariyaasha salaadiinta iyo waliba siyaasiyiinta kasta oo siyaasadda dalka Soomaaliya ku dhaxmilanta waa sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo telefishinka Star waraysi gaar ah Hargeysa ku siiyay waxaanu ka yeelanaa ma jirto hadduu suldaan yahay iyo hadduu wariye yahay iyo hadduu nin alla ninku doono noqdo oo ka ololeynaya maxaan ku dhahdaa qarannimada jamhuuriyadda Somaliland walaa wariyaanaan ka yeelin walaa nin kale aanan ka yeelin waxaanu dalkan iyo qarankan shuruuc buu leeyahay shuruucdaasaan boorka ka tumaynaa shuruucdaasaan ku qaadaynaa qof ama wariyayaasha oo dham haysu sheegaan haddaad xamar tagto qardeeda jamhuuriyadda Somaliland ka ololeynayso wallahi inaan suldaanno ku soo deynin aqalkaaguna ku soo deynin jamhuuriyadda Somaliland waqti ummadeeda iyo shacabkeedu go'aan ay gaadheen go'aankaas waa mid ka turjumaya masiirka jamhuuriyadda Somaliland mid shakhsi ku salaysan maaha mid qof wuxuu jecel yahay ku salaysan maaha waxa weeye ummadda jamhuuriyadda Somaliland waxay goosatay inay go'aansadeen inay gooni isu taagaan oo ay noqdaan dal madax bannaan oo ka xoroobay xamar arrintaas qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxa kaga burburay waxa la boqolaal kun oo qof ayaa maxaan ku dhahdaa naftooda ugu shiiday hawshaas siday ugu xoroobi lahaayeen waxa kale oo dhacday waxa la wixii maal jamhuuriyadda Somaliland ay lahaayeen hadday magaaliyo hadday dad tahayba maxaan ku dhahdaa arrintaas way ku luntay Badri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.